daawadayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba muuqaalkayga idiin soo gaaray waxaan idin leenahay subax wanaagsan. waa 17 bisha June sanada 2019 waxaad naga daawanaysaan TV-ga caalamiga ama channelka caalamiga ee Dahfur TV. qodobada aad saaka ku maqli doontaan wararkayaga waxaa ka mid ah maamulka galmudug waxa uu sheegay inay gacanta ku dhigeen dadkii ka dambeeyay dilkii 4 ruux lagu geystay duleedka magaalada Dhuusamareeb. madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Maxamed Shaakir ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen raggii ka dambeeyay dilka 4 ruux ee duleedka magaalada Dhuusamareeb dilka lagu geystay. raggaasi oo waxa gacanta lagu soo dhigay gacan ku dhiiglayaalkii dilay 4tii hore oo ku dilay duleedka magaalada caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb. ciidamada amniga ee galmudug ayaa gacanta ku soo dhigay. waxaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim dhibaatadii ay geysteen oo ay ummadda Soomaaliyeed oo dhan u geysteen iyo dhibkii gaar ahaaneed oo marxuumiintii ahalkoodii iyo qaraabadoodii u geysteen wixii ay ka mutaystaan shariicada islaamka in la geeyo. oo ahaa kuwa xanaaneynayay shinni ayaa lagu dilay toddobaadyadii la soo dhaafay magaalada Dhuusamareeb duleedkeeda. ragga la dilay ayaa waxa ay ka soo jeedeen Dhuusamareeb. arrintaani ayaa aad uga gilgishay dadka ku dhaqan galmudug iyo guud ahaan Soomaalida kadib markii dhowr jeer lagu dilay halkaasi dad ka soo jeeda Dhuusamareeb oo toddobaadkii ugu dambeeyay dad gaaraya 10 qofood lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee badankoodna ka soo jeedeen magaalada ama koonfur galbeed Soomaaliya. madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Maxamed Shaakir ma cadeynin tirada saxda ay soo qabteen balse waxa uu sheegay inay gacanta ku soo dhigeen dadkii ka dambeeyay dilka 4 ruux. maamulka galmudug ayaa waxaa loo soo jeedinayay tallaabooyin ku aadan inay qaadaan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen raggii ka dambeeyay dilkaas iyadoo weli laga sugayo inay gacanta ku soo dhigaan sidoo kale raggii ka dambeeyay dil wadareedkii loogu geystay magaalada Gaalkacyo dad shacab ah kuwaas oo guryahooda lagala soo baxay. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud, Dahfur TV, Muqdisho. daawadayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba muuqaalkayga idiin soo gaaray waxaan idin leenahay subax wanaagsan. waa 17 bisha June sanada 2019 waxaad naga daawanaysaan TV-ga caalamiga ama channelka caalamiga ee Dahfur TV. qodobada aad saaka ku maqli doontaan wararkayaga waxaa ka mid ah maamulka galmudug waxa uu sheegay inay gacanta ku dhigeen dadkii ka dambeeyay dilkii 4 ruux lagu geystay duleedka magaalada Dhuusamareeb. madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Maxamed Shaakir ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen raggii ka dambeeyay dilka 4 ruux ee duleedka magaalada Dhuusamareeb dilka lagu geystay. raggaasi oo ahaa kuwa xanaaneynayay shinni ayaa lagu dilay toddobaadyadii la soo dhaafay magaalada Dhuusamareeb duleedkeeda. ragga la dilay ayaa waxa ay ka soo jeedeen Dhuusamareeb. arrintaani ayaa aad uga gilgishay dadka ku dhaqan galmudug iyo guud ahaan Soomaalida kadib markii dhowr jeer lagu dilay halkaasi dad ka soo jeeda Dhuusamareeb oo toddobaadkii ugu dambeeyay dad gaaraya 10 qofood lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee badankoodna ka soo jeedeen magaalada ama koonfur galbeed Soomaaliya. madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Maxamed Shaakir ma cadeynin tirada saxda ay soo qabteen balse waxa uu sheegay inay gacanta ku soo dhigeen dadkii ka dambeeyay dilka 4 ruux. maamulka galmudug ayaa waxaa loo soo jeedinayay tallaabooyin ku aadan inay qaadaan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen raggii ka dambeeyay dilkaas iyadoo weli laga sugayo inay gacanta ku soo dhigaan sidoo kale raggii ka dambeeyay dil wadareedkii loogu geystay magaalada Gaalkacyo dad shacab ah kuwaas oo guryahooda lagala soo baxay. aad iyo aad bishaaro weyn u ah in gacanta lagu dhigay dadkii ka dambeeyay dilkii hore ee bariga Dhuusamareeb ka dhacay. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ciidamada qalabka sida ee dhacdadu maalintay dhacday iyo maanta inta ka dhaxaydaba ku raad joogay ilaa ay soo qabtaan ay gacanta ku dhigaan sharciga islaamkana laga hor keeno. waxaan leenahay dhammaantiin
yacni khayr iyo barako iyo nabadgelyo amni iyo istiqraar. waxaa kaloo aad iyo aad lagu daba jiraa oo howlgalkeedii u socdaa dhacdadii ka dhacda Gaalkacyo. ciidamada amniga, culimaa udiinka, cuqaasha, dhallinyarada, hooyooyinka looma kala harin. xanuunkaas ay ka xanuunsadeen daraaddeed inay raadinahayaan dadkii waxgeystay. gobolkoodna aan rajaynayno in gacanta lagu dhigay sida aan ka helayno ila xog ogaal ah. kuwa kalena gacanta lagu dhigi doono. hooda lagala soo baxay cabdiraxmaan maxamed maxamuud, Daafur TV, Muqdisho.